cibaadada xoojinteedu qalbiga sugnaashiyihiisa keenta cibaadadu hadday kaa daciifto waad gilgilmaysaa macaasida aakhirka kuu fududaanaysa idan ama ha noqoto cibaada qalbiya oo الخوف والرجاء والخشية والرضا والإخلاص والمحبة والتوكل عبادة قلبية هالنقطة أما هالنقطة محي عبادة عربة وإله الذكر يسأل بديه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي حسكيس وبراكتيكال هدي وردقاق وبتدق ناشيها بدنيا بل dadkan warwarka iyo qalaqu ku dhaco ka tagaya warwarka iyo qalaqa badani uu ka tagaya haduu dikrigaagu badan yahay adigoo soo jeeda hadaa dikriyayso sawgeed buu nabigu wuxuu tilmaamayaa ninka ilaahay xusa iyo ninka aan xusini مثل الحي والميت bay la mid yihiin nabigu leey qof dhintiyo qof nool farqa u dhaxeeya intuu leegi ma isu ko beergarayn kartaa qof dhintay iyo qof nool wuxuu nabigu ku tilmaamayaa inay isu dhigmaan labada tusaale qofka ilaahay xusa iyo qofka aan xusin inay sidaas oo kale isku yihiin sawgeed baa ilaahay quraanka inoogu tilmaamaya yaa ayuha alladina aamanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati halayni fas'au ila dhikri llahi wa dharu al-bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun munafiqiinta markii la ceebeynayay ilaahay wuxuu ku tilmaamay wala yadhkuruna allaha illa qalilan hadaynu inagu markaa qaliil xusna maxaynu soo baxaynaa sifa min sifaat almunaafiqiin baad yeelanaysaa hadday kugu yaraado ilaahay xuskiisa qalbiga waxa nuuriya ee iimaankiisa xoojiya waa ilaahay dikrigiisa aad badiso quraan badan baana mas'alada ku soo arooray oo tilmaamaya ilaahayna wuxuu ina leeyayba ana cinda dhanni cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga malaynayo maanahay oo dee haddaad ilaahay malihiisa wanaajiso wa ana macahu idaa dakaranii buu nabigu leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy addoonkayga maci baanahay hadduu xuskayga badinayo hadduu i xuso oo naftiisa iga xuso anna waa xusaya hadduu goob dad jooga iga xusana goob ka fiican halkuu iga xusay bini aadamku wuu magac jecel yahay soo maaha in la sheego dee la yidhaha ninkani waa hebelo waa kaasoo waa magac jacayl ilaahay wuxuu leeyahy xataa haddaad magac jeceshay halkan magaceedu naf ma lehee samaawaadka kuwa joogaan kuu sheegaynaabaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala meel halkan ka magac roon ayaa lagaa xusayaa cibaadaadka ku saabsan weyso salaad zako soon xaj jihaad iyo keyrkeedba cibaadaat aljawaarix iyana inaynu badinaabaynu u baahanay si iimaankeenu uu xoogaysto waxyaabaha iimaanka xoojiya markaa waxaa ka mid ah waxa alle jecel yahay inaad ka horraysiiso waxa naftaadu jeceshay oo waa kii nabigu tilmaamayay saddex qofka helaa iimaanka macaankiisu hela dhadhanka iimaanku hela qofka ilaahay iyo rasuulkiisu agtiisa lagaga jacayl badayay wixii ka soo hadhoo dhan ilaahay rasuulkiisa haddaad si dhabo u jeceshahay waxay iyagu jecel yihiinna waad ka jeclaanaysaa waxa kale iyo qofka ilaahay dartii walaalkiisa kale muslimka u jecel iyo qofka neceb inuu gaalnimo ku noqdo sidii uu neceb yahay inuu dab ku dhaco waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxaa ka mid ah inaad ka maqnaanin meelaha khayrka lagu hayo majaalis adikr oo saxaabi ka mid a qoladii waxyiga qori jirtay ayaa maalin nabiga u yimi isagoo leh ilaahay rasuulkiisiyo waan munaafaqoobay buu yidhi nabigu wuxuu ku yidhi wamaa daak waa maxay arrinkaa munaafiqnimada kuu keenay muxuu yihi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo markaanu kula joogno ee aada naar iyo janno ka warranteenna wacdidana waxaad mooddaa inaanu naarta iyo jannada ishaba ku hayno markaanu kaa tagno ee dumarkii iyo carruurtii iyo dayacaadkaygu dayacaadku waa xoolihii iyo wixii uu haystay uu ka shaqaysanayay xirfadiisii ama xoolihiisii ama shaqadiisii aanu shaqooyinka gallana wax badan baanu ilowna yacni markii aanu kula joognay sidii aanu ilaahay u rumaysnayn ee qalbigayga uu soo jeeday uma soo jeedno markaanu meelahan kala joogno markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay
haddaa ku sugnaan lahayd ay joogto idiin noqon lahayd marka aniga ila joogtaan sidaa tihiin iyo inay ilaahay xuskiisaasi ku jirtaan mar walba malaa'igtaaba suuqa idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahay suuqyada iyo furshaantiina korkooda ayaa malaa'igtu idinku salaami lahayd laakiin xandalow buu nebigu ku yidhi saaca wa saaca saacad iyo saacad saacad iyo saacadna ma saacad la firinbidhaba mise may waxaa la sheegaya saacad iimaanka aada xoog u xoojiso iyo saacad aad danahaaga caadigaa iska qabsatid marka goobaha diinta lagu haya goobaha ilaahay la ysku xasuusinaya adaa u baahan ilaahay nabigiisii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu u tilmaamayaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaashi waalcashi nebi maxamed baa la leeyahy fadhiiso oo ku sabir meesha kuwa ilaahay xusaya ay joogaan ee ilaahay wejigii uun doonaya oo walaa tacdu caynaaka canhu isha ha ka lalinin baa ilaahay leeyay yay kula fududaanin dadka ilaahay xusaya meesha joogaan yay kula fududaanin baa ilaahay leeyay adigoo turiidu ziinata alxayaati dunya adoo raadcaynaya nolosha bidhbidhkeeda walaa tutic ha yeelin baa ilaahay yidhi ha aqbalin man aqfalnaa qalbahu can dikrina kuwan qalbigooda la madoobeeyey ee ilaahay xuskiisu ka madow yahay ee hawadiisa iska raacay kuwaa warkooda ha dhegaysanin idan majaalisu dikr meelaha diinta lagu hayo ilaahay lagu isku xasuusinayo masaajidda saaxiibka wanaagsan waayo nebigu wuxuu tilmaamaya qof waliba almaru calaa diini khaliilihi buu nebigu tilmaamay qofku diinta saaxiibkiibuu ku jiraa waxaan leenahay waxaasoo dhammi waxay sheegayaan in iimaanku uu xoogsado wakhtiga kooban daraaddeed waxaan kusoo koobayaa haddaynu nidhi iimaanku wuu koraa waanu naaqusnaa haddaynu rabno iimaanka inaynu taxqiijinno waxaynu u baahanay ilaahay inaynu baranno iyo diintiisaba iyo shareecadiisa wanaaggeeda inaynu baranno kownkan inaynu u fiirsanno aayaat alkowniya inaynu si fiican u daraasayno waxa ilaahay nimcayna siiye sida laynoo buunbuuniyey ee laynoo karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama marka ilaahay leeyay bilaash maaha inaynu qur-aanka baranno iyo aayaadkiisu waxa ay sheegayaan inaynu cibaadaadkeenna iyo dikrigeenna badinno inaynu majaalista ilaahay lagu xusayo ka agdhowaanno ugu dambayn macsida iyo meelaheeda inaynu ka fogaano oo macsidu waa wax keenaya in iimaankaagu dib u noqdo oo aada hoos u dhaadhacdo waa wax keenaya maadaama wakhtigu iska koobanya waxaan ku gabagabaynayaa haddii uu nebigu tilmaamay iimaanku wuu gaboobaa sida maradu dushiina ugu gabowdo ilaahay weydiista buu nebigu yidhi iimaanka inaan laydiin cusbooraysiiyo wixii adduunyadiinaa sooma ilaalisaan wixii adduunyada ah lacagtaada meel baad ku hubisaa socankaa maaha jaamacaddaadii waxaad dhiganaysa meel baad ku hubisaa diintaadana haddaba ilaasho iyadaa ka qiimo badan inta kaloo dhane oo wixii aada u aragto inuu diintaada iyo iimaankaaga kobcinayo ha ka tegin wixii aada u aragto inuu waxyeelayo bedel haddaad sidaa ku dadaasho meel baad gaadhi doontaa qantara aan shaki iyo khuraafo iyo warwarku kaa tago waad si fiican diinta kuu biyo dhigto aada u suganto fitanka iyo imtixaanka ilaahay nabigiisii moxameda calayhi salaatu wasalaam buu ku leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftarii calayna gayra waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waxay u dhowaadeen inay kaa weeciyaan wixii aanu kuu soo waxyoonnay oo ad wax kale nugu been abuurto hadday saasi dhacdana saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen baa ilaahay leeyay yacnii waxay doonayaan lumitaanka haddaanan annagu ku sugi lahayn baa ilaahay yidhi laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila saa awgeed haddii ilaahay nebi maxamed saa ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam dadka wixii ka sokeeyana waad garan kartaa imtixaanaadka iyo fitanka ku dhaca sida iimaankooda u daciifinayaan ama aanu u xaqiijin karin qofku iimaankiisa
إلهي القرآن كقبر بكت الماما يا ملا مسكحته وحغير الدنايين وعربي أي شيء شرتي قالين كهوري وحبي تدعي شرتي تدعى متغانين حرق بيسوهي شرتو سمين شرتي قالين كهوري مركي حرق قاسي الصوهده أما تدعده أما الصميسة هاد بصوت غانين قالين كده مروي فرفوري شرتي marka waa shaqo marna la qabanayo maxay marna dib loo burburinayo marka saa ilaahay wuxuu leeyahay wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha anqonina siditi burisay wixii ay soo haysay toleysay kadib markii ay adkaysay waxa lagu mahmaahaya ama la tilmaamayo qofka mu'minkii إنه إلهي الرمية أعمال صوبان سمايا هدنا وح برينيا ولا يمادا وحي وحاجة دمك جرو إن النقطة يسكروا حاجة نكلا جرو هذا هو نسك قلبته سأوجد بالنبي عليه الصلاة والسلام وحقت المام يا إيمان كقفك مؤمن كي إنه دوجوبه جبوبه وأبا هينا إن للتجديدية والله عصبان يسيه بل وحيابها قفك إيمان كيس أما عمل كيس برينيا أما الرياء استوصى النغضة أما السمع اسم غشين هالنغضة أما معاصي إيو كبائر الذنوب وهوين وقالها النغضة أما كوا إيمان كباب برياء نفاق يرده وقدعها النغضة وحاصر دان مركا الله يسقط داره ووحكا سهر جيدا إيمان كحوغين تيسا وقت كان دمنا وحو نبغو تلماما ين إيمان دونان ضد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا بالنبي عليه حديث كمسلم كي الله نبا وابري سندونا يسوع مؤمنة هدنا قلبا يسندونا يسوع قاله هدنا وابري سندونا يسوع قاله هدنا قلبا يسندونا يسوع مؤمنة حيكون عيسى يبيع دينه بعرض من الدنيا بالنبي عليه دينتي سيو حسيسانيا وحوغا يرى الدنيا كميدا الدنيا كودا ما وحير marka iimaan loo eego sawgeed waxaan u baahanay iimaankeena sidaynu xoojin lahayn quraanka ilaahay qaar buu ku tilmaamay ilaahay aayadkiisa wax ka baray oo dabeetana tuuray watlu calayhim naba alladhi aataynaahu aayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytaanu fakana min al-ghaawin waxaad akhridaaba ilaahay yidho dadka u sheegtaa warkii ninkii إلهي آيات كيسا وحكسيي دبتنا كسيبتي شيطان راعبة إلهي تلمام يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة إيمانكم مركاه رميت إنه إلهي الرميسان يا الرسول كيس يا مالنت آخرية قيامها يا قضاء يا قدرك يا الرسوش يا كتبته إيمان كاسي درجات بولي إيمانكم مركاه لا يسكو صوت ضوضوبه عقيدية عمل بدر رجل يقيب وواجب وهذا تكتك إيمان كاقدا وعوي ما قارية دانو بريمبا قيبنا هو مصطحب وهو وحلو حوشي إيمانك هنا تقال لماذا إيو شركي إيو شرك الأكبر إيو شرك الأصغر إيو وحي الله المالودر إنها تكتكتا وكو بدعة إيو حلا نوعين تكتكتا والله معاصيدا iyo waxa la mid ah ka tagtaa waa saddexdaasi buu kugu waajib inaad la timaado waxa sunnayaasha ah waa ma a'maal al-qulub kam noqdaan ama a'maal al-jawarih kam noqdaan wax badan oo sunnayaal baa jira haddaba waxa ku soo koobaya leeyay